subaxan ayaa fagaaraha aratuurka magaalada Baydhabo loogu oofiyay qisaasta dambiyo dhiigdaadin ah oo kali iyo wadajirba ay u galeen John sanadkan iyo sanadkii 2018 Xuseen Cali Macalin Iimaan Gurey oo ka tirsanaa daraawiishta Koonfur Galbeed iyo Abduwaahid Cali Sheekh Aadan oo ka tirsanaa militariga ayaa beertiisa ku dhex dilay marxuum Muxudiin Maxamed Cabdiraxmaan John 2018 way u awood sheegteen marxuumka waxaana xitaa ay ku dhameystireen bastooladu lahaa waxaana jiray muran hoose oo xagga marxuumka iyo laga oofiyaasha ka dhaxeeyay kaasi oo ahaa xilfaatan jifooyinka ay ka kala soo jeedaan maxkamadda ciidamada qalabka sida xeerarkeeda kala duwan ayaa dil ku wada xukuntay bilihii July August ee sanadihii 2018-2019 markana Abdullaahi Ibrahim Yarow Borow ayaa waxa uu dilay isgow Maxamed Aadan John saddexdeedii sanadkan marxuumka ayaa ahaa farmashiste isku diyaarinayay gurigal aroos laakiin waxa uu dhintay ka falcelinta xabad kor looga riday kadib markii uu dhinac maray checkpoint baad uu kaga aruursanayay gawaarida xukunsanaha dilka lagu fuliyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa July 2 sanadkan ku xukuntay dil toogasho waxaana halkaasi joogay saraakiil ka tirsan qeybaha ciidamada gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liibaan Cali Yarow iyo mas'uuliin kale gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi heer ilaaliye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa toogashada kadib kula hadlay warbaahinta fagaaraha cadaaladda bismillaah taariikhdu markay ahayd 26 bishii 7 2018 waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida qaybta 6aad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedeysanayaasha kala ah 1 Deble daraawiish Koonfur Galbeed Xuseen Cali Macalin Iimaan Gurey ina Nishaamo Aadan Yuusuf 23 jir ah ku dhashay Cabaaqbeedey degan Baydhabo ka tirsan ciidamada daraawiishta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed 2 Deble Xooga Cabdiwaaxid Cali Sheekh Aadan ina Nuuriyo Macalin Mukhtaar 23 jir ah ku dhashay degan Baydhabo ka tirsan taliska qaybta 6aad ee xooga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida qaybta 6aad ku soo eedeeyay in ay si wada jir ah u dileen marxuum Muxudiin Maxamed Cabdiraxmaan taariikhdu markay ahayd 18 bishii 6 2018 dilkaas oo ka dhacay dhul beereed ku yaala duleedka degmada Baydhabo oo ay isku haysteen waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Muxudiin Maxamed Cabdiraxmaan taariikhdu markay ahayd 28 bishii 7 2018 xukunsanayaasha ayaa racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida qaybta 6aad taariikhdu markay ahayd 29 bishii 7 2018 waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Muxudiin Maxamed Cabdiraxmaan taariikhdu markay ahayd 17 bishii 8 2019 sidoo kale taariikhdu markay ahayd 2 bishii 7 2023 waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida qaybta 6aad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedeysane gacan ku dhiigle Deble Booliis Koonfur Galbeed Abdullaahi Ibrahim Yarow Abdullaahi Borow 38 jir ah ina Faadumo Maxamed Nuur ku dhashay Buurhakaba degan Baydhabo kaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida qaybta 6aad ku soo eedeeyay in uu si bareer ah u dilay marxuum isgoowe Maxamed Aadan taariikhdu markay ahayd 3 bishii 6 2023 dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum isgoowe Maxamed Aadan taariikhdu markay ahayd 2 bishii 7 2023 maanta oo ay taariikhdu tahay 21 bisha 10aad 2023 waxaa lagu wada fuliyay xukunsanayaasha xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq Siraaj Sheekh Isaaq warbaahinta qaranka Baydhabo